Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo muddo ka badan 3 sano u xirnaa dawladdii hore ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid yahay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee maanta lagu dhawaaqayo. Arrinta ugu muhiimsan ee golaha wasiirada cusub ayaa ah in Roobo oo xabsi guri ku jiray muddo ku dhow 4 sano uu maanta ka mid yahay shakhsiyaadka ku jira liiska xukuumadda cusub ee aan weli la shaacin. waxaana la sheegay in lagu qoray wasaaradda diinta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah. Sheekh Mukhtaar ayaa dawladda Soomaaliya isku soo dhiibay sanadkii 2017 kadib muddo 5 sano ah oo uu ka gadoodsanaa habdhaqanka Al-Shabaab isla markaana uu ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Bakool. bishii Agoosto ee sanadkii 2017 ayaa Sheekh Mukhtaar Roobo shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inuu si rasmi uga baxay ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku kala aragti duwanaadeen fikirkii ay markii hore ku mideysnaayeen. anigoo ah Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab soo noqday mas'uulka labaad ee xarakada waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibnimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido ku qotoma khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin. tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Bakool meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyay waana iska difaacay. tan kale waxaan u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan. waxaan cadeynayaa in uu wada hadalo noo socdo dawladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha Allah ta'ala. qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee la igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha Allah ta'ala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarto wabillahi tawfiiq. hadalkaasi kadib Sheekh Mukhtaar Roobo ayaa bilaabay oo la ku saabsan tartanka loogu jiro xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed waxaana maalmihii u dambeeyay ee diyaargarowga doorashada si xoog ah looga soo qabtay magaalada Baydhabo iyadoona dawladda ay wixii xilligaasi ka dambeeyay xabsiga dhigtay sheekha. xarigiisa ayaa loo arkay inuu ahaa mid siyaasadeed inkastoo xukuumaddii xilligaasi ay sheegtay in aanu weli Roobo dhammaysan hannaanka hubinta dadka ka soo baxa Al-Shabaab. doorashadii 15 May kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka iyo siyaasiyiinta kale ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ka wada hadlay in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo Sheekh Mukhtaar maadaama dalku yeeshay hoggaan cusub. arrinta la xiriirtay in Sheekh Mukhtaar lagu daro golaha wasiirada ayaa soo shaabaxday maalmihii u dambeeyay waxaana tilaabadan ay ahayd mid aan horey u sii qorshaysnayn balse soo xoogaysatay toddobaadkan. madaxweyne Xasan Sheekh iyo saaxiibadii oo ka arrinsaday arrintan ayaa isku keenay laba aragti oo kala ahayd in sheekha lagu daro xukuumadda iyo in aan lagu degdegin arrintaasi. aragtidii ku saabsanayd in Roobo uu xubin ka noqdo golaha wasiirada ayaa la qaatay markii dambe kadib markii arrintaasi ay taageereen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse
isla markaan uu xoojiyay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe kaasi oo kaalin weyn ku lahaa in Abu Mansuur uu ka mid noqdo xukuumadda cusub. Warar aan ka helnay ila wareeda muhiim ayaa inoo xaqiijiyay in 3 arrimood ay salka ku hayso magacaabista Sheekh Mukhtaar Roobow. arrinta kuwaad ayaa ah in madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ay doonayaan inay xoog saaraan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si arrintaasi looga miro dhaliyana ay Roobow u arkaan shakhsi la falgali kara falsafada Al-Shabaab kaalin mug lehna ka geysan kara dagaalkan ku wajahan xoogga Al-Shabaab. arrinta labaad ayaa ah saameynta uu sheekhu ku leeyahay deegaanada Koonfur Galbeed. hoggaanka dawladda cusub oo aan si muuqata u shaacin aragtidooda dhabta ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa la aaminsan yahay inay ka go'an tahay taageeridda isbeddel ka dhaca maamulkaasi waxaana qorshahaasi loo arkaa inuu hormuud ka noqon karo Mukhtaar Roobow. arrinta saddexaad ayaa ah wax ka beddelidda tillaabooyinka ay qaaday dawladdii hore. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qayb ka ah siyaasiyiintii diidanaha maamulka hoggaanka dawladdii hore ayaa hadda doonaya inuu qaado tillaabooyin ka duwan kuwii hore waxaana arrimahan qayb ka ah xurriyad siinta Sheekh Mukhtaar Roobow iyo ka qaybgelinta maamulka dawliga ee dalka. go'aankan ayaa ka cariisiyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaana sidoo kale arrintan aysan farxad gelin doonin hoggaankii dawladdii hore ee lahaa go'aankii lagu soo xiray Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah Sheekh Mukhtaar Roobow muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka dawladda ay kula jirto ururka Al-Shabaab.